madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta u safro dalka Sacuudiga oo uu ka furmayo shirka madaxda Islaamka iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ay ku kulmayaan. Shirkani waxaa looga hadlayaa xiriirka madaxda Islaamka iyo dalka Mareykanka sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka oo dhawaan shirkan ku baaqay inay martigelinayso dowladda Sacuudiga oo uu sheegay inay tahay saaxiibka wanaagsan ee dalka Mareykanka. Shirkan waxaa ugu muhiimsan ee looga hadlayaa ayaa la sheegay inay tahay la dagaalanka argagixisada waxaana sidoo kale looga hadlayaa xaaladaha Suuriya iyo waliba talooyinka madaxda Islaamka. madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid noqonaya in ka badan 50 hogaamiye oo dowladaha Islaamka kala socda oo la kulmi doona Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka. meelaha ay diiradda ku saari doonaan labada madaxweyne ayaa kulanka labada madaxweyne ayaa waxaa qayb ka ah ammaanka Soomaaliya gaar ahaan dardargelinta la dagaalanka Al-Shabaab. Saraakiisha warkan laga soo xiganayo ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay fursad weyn u tahay la kulanka madaxda uu ka mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uuna diiradda booqashadiisa ku saari doono taageero ballaaran oo dowladda Mareykanka sidii ay u taageeri lahayd dowladda Soomaaliya.